maamulka shirkadda Ancaam ee naaxinta iyo iibinta xoolaha ayaa ka warbixiyay xoolaha ay ka dhoofiyeen dekedda magaalo xeebeedka Berbera. Gudoomiyaha shirkadda Ancaam Ismaaciil Maxamuud Maxamed Caraale ayaa sheegay inay tahay shirkadoodu tii ugu horeysay ee nooceeda ay ka hirgelisa magaalada Burco xarunta gobolka Togdheer maxjar lagu daryeelayo caafimaadka iyo naaxinta xoolaha. ugu horeyn shacabka Soomaaliland gaar ahaan shacabka gobolka Togdheer iyo madaxdoodaba waxaanu ugu bushaareynayna ku farxad gelinaynaa hadaanu nahay shirkadda Ancaam International Company oo ah shirkadii aasaastay maxjarkii ugu horeeyay ee gobolka Togdheer laga aasaaso oo muddo iminka 4 sano ah jiray. waxaan ugu bushaareynayna inaanu dhoofinay xalayto xoolihii la naaxiyay ama laga shaqeeyay caafimaadkooda iyo sida ay ku baxayaan guud ahaanba ay tahay si aad uga duwan sidii hore xooluhu ay u dhoofi jireen, iyadoo shirkaddu ujeedada ay ka leedahay ay ka duulaysaa ay tahay in xoolaheenu ay noqdaan kuwa competitive ku ah suuqyada xoolaha loo iibgeeyo. walilaahi alxamd arrinka isaga si weyn baa runtii looga howlgalay waana lagu guuleystay. Maxamed Xaashi cilmi madaxa iibka iyo suuqgeynta shirkadda caalamiga ah ee Ancaam ayaa ka warbixiyay tirada xoolaha ay dhoofiyeen. waxaan u sheegay inay dhoofiyeen xoolo gaadhaya 12,000 oo ariya, 350 lo ah iyo 300 oo geela. in xoolihii ugu horeeyay ama xoolihii labaad ee ka dhoofa macjarkan Burco ee shirkadda Ancaam ay ka dhoofeen xalayto xoolaha oo u dhoofay wadanka Qatar horena uga dhoofeen xoolo kale oo lo ah oo aan u diray wadanka Kuwait ay tahay dafcadii labaad ee u dhoofta wadanka Qatar. aad iyo aad baanu ugu faraxsanahay. waxaanu rajaynaynaa hawsha oo dhismihii macjarka aan muddo ku soo jiray dafcadii labaadna ay tahay xoolahan maanta ka dhoofay in xoolo fara badan oo tayadooda iyo caafimaadkooda iyo daryeelkoodaba aad iyo aad looga shaqeeyay ay iminkana ka dhoofeen kana dhoofi doonaan ayaamahan soo socda. shirkaddan ayaa la sheegayaa in lagu maalgeliyay lacag dhan 3 milyan oo dollar, waxaana ku shuraakoobay muwaadiniin u dhalatay dalka. waxaana la filayaa inay ka qayb qaadan doonto shaqaalaysiinta dad badan oo camal la'aan la fadhiya. Cabdimaalig Muuse Coldoon, Somsad Burco.